horta aad iyo aad baan idin salaamayaa inkasta oo aan maanta cadhaya ceel cirkaa marayay laakiin shirkaan mar dambe aanoo meel fog joogo ogaaday oo orod baan ku imiday waxaana laga yaabaa waqtigu inuu iska gabagaba yahay marka horta wixii aan odhan lahaa malaha ma wada odhan karayo laakiin intaan warwareega ka daayo uunbay halkay tahay aan taabanaya horta waxaa la yidhi waxa soo socda ninkaan garin waxa jooga ma garto arrinteenu iyana warku inaga khaldamin abi isma haysano xabashina isma haysano wax alla waxaan isku haysanaa ma jirto Itoobiya inagu qarnigii 15aad baan kala baxnay oo u muujinay inaanay badda iman karin waa lagu kala hagaagay halka waynu ognahay waxa se maanta keenayna waa inaan garano dacwadeennana xabashi iyo abi iyo meesha inooma taalo dadkeen Itoobiya degan in badan baa inaga degan inaga abinama soo weerarin ciidan Itoobiyaan inooma iman wax weey waxa dhacay waad ogtii anigu arrintan horaan u sii sheegay intaan imanayna dhalinyar badan oo halka joogta marxaati bay ka tahay maalin kasta oo imaado Muuse Biixi inta uu joogo ajendaha ugu weyn ee inuu fuliyo ay tahay inuu dadka gadabuursi baabiyo in tahay maalin walba adii sheegi maalin walba adii sheegi jiray khayriyadan kaga qudbadeeyay oo ila inaga kani ma aaminsana hatta waxa Soomaaliland leeyahay la isku yimday in adigu kamid tahay ma aaminsana wuxuu u haystaa dad la qabsaday oo la haysto aan choice lahayn warkiisu wuu cadaa waxana filayay ilaa imka doorashooyinka oo dib u dhigay waxaan ku dhalinyarta war ninkani wax kale ma sugayo ma aha kursi fadhi ajandihii ugu weynaa baan u fulin oo ahaa baabiinta gadabursiga ajandihii baan u fulin waxa weeye markaa anu tan waa filayay wayna soo socotay tu kalena way socotaa abina isma haysanay Itoobiyana isma haysano ninba u tagay oo u sheegay oo yiri kuwan waxba lagama weydiiyo sida Ilaahay noo leeyahay baan anu u leeyahay ninba ku yiri sida iyaga waxba ka weydiin aniga wax iga weydii waxa weeyaan wax kalena inaan ka warwareegin maanta hadaynu inaga daacadtahay runta aynu sheegno oo baaq weyn aan ugu dirno madaxweyne xogeen baa meesha jooga wasiiraa inaga jooga wax alla wax laga weydiiyay iyo waxay ka og yihiin midna maanta ma jirto waxa weeyaan waa inaan ugu baaqano sida ugu dhaqsaha badan dhamaantood inay iscasilaan madaxweyne xogeenku bari cad ceeduna uga soo baxda ma waa inuu iscasilo dhamaan wasiiraduna waa inay iscasilaan hadii aan dadnimo leenahay oo aan dhiig leenahay laakiin inta halka qaar joogaan ee madaxweyne xogeenka iyo wasiirkan ka sheekeynayno waxba ma qaban karnayno ninka dhiig galina waa ninkaas casila wasiirkii kii gaashaandhiga oo istaygiisuba yaraaba iscasili kuwii istayga ugu badan lahaaba fadhiya meesha ilaa baan nigu dhaariyay markuu ninkaasi casilay kuweena maxay qabanayaan marka waxa weeye anu arrinta waan ogahay waana filayay tuka daran soo socotana waan filayay meeshana ninka Muuse Biixi waxa uu naga aaminsan yahay anu waan ogahay xogogaal baanu ahay horena waan ogaa maalin walba goormay dhici doontaa baan lahaa laakiin xagga ka filay ma aha si kale u dhacdayba marka walaal waxa weeyaan Itoobiyana ku wareeginagu abiyina laba hadal dagaal nagu ma soo qaadin nin baa yiri ana ka masuula okay Muuse Biixi isagu dantiisu ka hadlay meel uu iibsado oo inankiisuna ku yeesho share shirkadda diyaaradaha ilaa inta ay nool yihiin generations bay soconaysaa marka wuxuu iibiyay dadkii aw islaha way ugu liitaan oo waxba ma samayn karaan buu dhulkooda iibiyay waayo meel kale u iibin karay ma jirin marka waxa weeye haddaba Muuse waad khaldantay waan iska aamusnaynay namaad arage imikaynu is arki doonaay bal iibi waa kaas aad iyo aadna wada salaamaya waxaan rabaa dhamaantiin marka u dambaysiinta halka wada istaagtaan inaad baaq toos u dirtaan dhamaan madaxweyne ku xigeenka iyo dhamaan wasiirada bari subaxa in iswada casilaan runtii waa wax aad looga xumaado daawadayaal ninkaasi waa wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu maanta ku magacaabay nasiib darro ka weyn oo Soomaaliland soo martayna ma garan karno qof sida uga bareersan inuu aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland dagaal kula jiro sidoo kalena jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland uu dagaal kula jiro isagoo ka bareersan in uu dadka beeshiisa ka soo jeeda xukuumadda ku jira madaxweyne ku xigeenkii hore wasiiradii maxalliga beesha Samaroone hore ugu jiray xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayay dhammaantood
inuu ku baaqayo inay iscasilaan sababtay isu casilayaanna ay tahay in somalilan lagu baabi'iyo aqoonsiga ay baadidoonka ugu jirtana loo muujiyo caalamka inaanay beesha samaroon kula jirin in somalilan aqoonsi hesho waxa uu ku faraxsanaa wasiirkii gaashaandhigga xilligaa isu casilay in aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan aanay u baahnayn isagana aynu ogeyn jabuuti in laga soo diray oo la yidhi iscasil si aanay somalilan aqoonsi u helinoo aad u muujiso beesha ciise inaanay raalli ka ahayn inay somalilan aqoonsi hesho kan iminka inoo ah wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan ee halkii aqoonsigu yaalla aynu u diranay waa ka sidaa u hadlaayay saxaafadda somalilan oo dhan waa loo qaybiyey waxaanuna rabnaa bulshadu inay toosto oo ay aragto nooca uu yahay waxa uu yidhi inta muuse biixi joogo waa in aynu cid alla ciddii xukuumadda aynagaga jirta ka wada saarnaa si aanay u suurtogelin haba yaraatay aqoonsi jamhuuriyadda somalilan oo la helaa waxa uu ku dagaalamayey oo maxaa la yidhaahdaa uu ka abaabulayay maraykan in awdal state la kiriyadgareeyo isla markaana arrintii jabuuti laga soo abaabulayey wasiirkii arrimaha dibadda uu isku casilay wasiirkii gaashaandhiggu uu isku casilay inuu isaguna madaxweyne ku-xigeenkii hore wasiiradii hore xukuumadda somalilan ka tirsanaa ee beesha samaroon ka soo jeeday dhammaantood lagu adfays gareynayey si somalilan u burburto oo aanay aqoonsiga ay albaabka yimi u helin inay iswada casilaan nasiib darro maanta ka weyne ma jirto qof nooca ugu calaamadsan inuu jiritaanka jamhuuriyadda somalilan ka soo horjeedo inaynu maanta xilalkii weliba halkii aqoonsiga laga raadinayay aynu u dhiibanno tani way caddahay waxayna ku caddahay inaanu aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan mid maanta ay xukuumaddan jirtaana inoogu maqnaan karto aanu ahayn sidoo kalena ay hore dagaal ugula jirtay ninkani waxa uu caddaysanayaa inuu dagaal kula jira in somalilan la aqoonsado qof somalilan jiritaankeeda ka soo horjeedana sabab u maanta mas-uuliyiinta jamhuuriyadda somalilan uga mid noqdo waxay la mid tahay somalilannimadii oo aynu meel iska dhignay haddaba shacabka reer somalilan waxaanu leenahay annaku inaanu xaqiiqo idin soo hordhigno oo aanu raadinno maxaa la yidhaahdaa mas-uulka dhabta ah ee masiirkiina maxaa la yidhahdaa ka turjumi kara ama kalugooyada kuwa intaba inaanu soo hordhigno waajibna saaran weeye ilaa laale iyo inta aan ka dadaali karno balse shacabow idinkama waxa idinka go'an inaad daawataan oo aragtaan oo eegataan kuwa noocaasi inay xafiisyadii ugu muhiimsanaa jamhuuriyadda somalilan ay idin dhex fadhiyaan halgankan loo galay helitaanka jamhuuriyadda somalilan dowladnimadii ugu horreysay jamhuuriyadda somalilan lagu dhisay waxa ay ka soo ukantay gobolka awdal waxaa ku jira somalilan gobolka awdal waxaa ku jira dad geesiyaala aqoon-yahana somalilan waxay tahay yaqaana somalilan ka go'an tahay in ay somalilan halka ay doonaysa gaadhsiiyaan ay ka go'an tahay wasiirkeennii hore maxaa la yidhahdaa qorshaynta qaranka cawaalo shirwac 24 hours waxa uu ku jiraa oo twitter uga dagaalamaya oo meel walba uga dagaalamaya in ay somalilan gaadho halka ay doonayso iyadoo ay dadka aqoon-yahanka noocaasi inagu jiraan oo ay isla beel ka soo jeedaan sababta kan oo kale xil laynoogu dhiibay waa in macnaheedu uu yahay inaynu somalilan kii soo aftari lahaa aynu wax u dhiibanno kii hore inoola wadi lahaana aynu xilalkii ka ilaalino tani eegasho male daawadayaa tani maxaa la yidhaahdaa intaa ka badan dulqaadasho male tani way caddahay in la doonayo in somalilan la curyaamiyo marka ninka noocaasa ee shalay sidaa u hadlayey ee somalilan inay maxaa la aqoonsi helin ka dagaalamayey ee intaasoo ummada intuu isu keenay maxaa la yidhaahdaa qiraya isagu inuu maalin walba dhallinyarada iyo jaaliyadda gadabuursi hor imanayay oo uu lahaa somalilan sidii lagu burburin lahaa aan ka wada shaqeyno inuu leeyahay mas-uuliyiinta somalilan ku jirta hays cajiso si somalilan u burburto wartan waa faashil xaqiiqatan waa faashil siyaabo fara badan bay faashil u tahay hagardaamadii jabuuti bay inoo horkacday oo ay maxaa la yidhahda markiiba jabuuti hor fadhiisatay maanta waxaa kililka shanaad ka dhacaya ee maxaa la yidhahda wasiiro xaragoonaya oo calankii soomaaliya kusii labistay inta loo diray la yidhi weliba agaasimayaal yar iyo maxaa la yidhahda wax aan yani u qalmin oo masiirkeenna ahayn oo raggii ragga dadka laaye hoosaasiyaya inay u tagaan oo hor fadhiistaan iyaduna meel ka dhac kale weeye
وأي سورة بلوغ أو سيك الشضانو أي حتى علامة دي رئيس سومالي لان هلقا لسورة تري أي كتغير تي قرنك علامة دي قرنك علامة دي سومالي عالك سومالي مدنا ومحكا يمتشنو سورة بلوغة وعالك السوماليات كترجوية أي أسي حدين كدبنا waxa loo sii diyaariyay kuwii dadka xasuuqay ilaa heerka ayaa la ignore gareeyay waxay hayd in ay ama dawladda federaalka ugu tagaan maxaa la yiraahdaa Addis Ababa ama inay xuduudda kula kulmaan dawladda mas'uuliyiin federaalka socda laakiin kuwii dadka xasuuqay inay jigjiga marti ugu noqdaan nasiib darro kale oo runtii Soomaalilandnimadeena hoos u dhigtay ummadii la xasuuqayna inaan dan laga lahayn uun xogaa la tusayo show ah oo suuradoosi xidhay oo xataa aanay damqasho iyo ka muuqanin yani dhiilo in bulshadoodii la xasuuqay aanay jirin waxaa soo dhan baa imika runtii inaga yimi maxaa la yiraahdaa xukuumaddii cusbayd ee isbedel lahaa waxay ila tahay tan mid ka weyn ninka halkan maxaa la yiraahdaa ku jira wax ka weyn oo Soomaaliland maanta hagardaamo ku ay ma jirto shacabka reer Soomaaliland wuxuu rabaa mas'uul u daacada oo u shaqeeya u kala reer hebeleyn mayno kala jeclaysan mayno kala xisbiyeysan mayno laakiin mas'uul inoo daacada ayaan doonaynaa kani daacad ma aha kani waa khaayim weeye caddaystay inuu Soomaaliland ka soo horjeedo khaayinna maanta inuu xafiisyada ugu sarreeya ee weliba muftaaxi aqoonsiga ah weliba intuu isagu maxaa la yiraahdaa qaado dokumentigeena caddaynaya Soomaaliland nimadeena ku doonayna inuu Soomaaliland aqoonsi ku hesho ku doonayna Soomaaliland inay caalam ka mid tahay kii horgeyn lahaa ayaa saa u hadlaaya oo leh maxaa la yiraahdaa waa inaynu intaynaga jirtaan iscasil adigu maanta haddaba masaarifa noo soo doonanan iscasiloo ka baxa aanu mid daacad qaranka u ah u dhiibanay wardaa wadayaal reer Soomaaliland hagardaama halkii ugu xumayd baa aynu saacadaha ku jirnaa sidan oo kalena ilama aha inay qarankeenu intan ka badan ku sii jiri karo waxay ila tahay wixii qarannimada dhaawacaya ee qarannimada ka soo horjeeda ee Soomaalilandnimada ka soo horjeeda inaynaan dulqaadka intaa leegu yeelan waxay la macnataa inagu Soomaaliland ka samaray markaynu waxa sii eegano kan oo kale markaynu sii eegano waxay la mid tahay inaynu Soomaaliland nacnay waxaan idinku guubaabinaya iyadoo turxaan la iyadoo maxaa la yiraahdaa haddii aba ka dhigo caddaynaysa in Soomaalilandnimadiinii gacanta loo geliyay kii duminayay ee aqoonsigeeda ka soo horjeeday ee jaaliyadihiisa iyo dadkiisa ku kicinayay in aan Soomaaliland la aqoonsanin kii halkaa taagnaa in maanta leena aqoonsiga noo raadi wasaaradaha ugu muhiimsanayd ka midana uu inoo dhex fadhiisto waxay ila tahay inaynu muujino oo boodhar qaadano oo caddayno inaanu kaasoo kale xafiisyada inoo fadhiisan karin aqoonyahankii gadabuursibaad buuxa maxaa la yiraahdaa Somaliland dirkii gadabuursibaad buuxa oo xisbiga wadani ka tirsan waxaanu leenahay mudane madaxweyne naga qabo intay goortahay naga qabo uma dul qaadan karo kaasoo kale inuu xafiis noo soo fadhiyo oo uu shacabka yagii matalo uu isagu lugooyada iyo hagardaamadooda ka shaqaynayay daawadayaal arrintani arrin la sahashan kara ma aha arrin qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu sii eegan karana ma aha waxaan leenahay haddii Soomaaliland la soo laalaabay runta la inoo sheego haddii kalena dadkaasoo kale inana aan iska qabanno xukuumadda istaanahay naga qabato